madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Somaliland waxa uu magacaabay safiir cusub oo u fadhiyi doona magaalada Hargeysa. Jimcihii shalay 24 diblomaasi oo uu magacaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa ku jiray safiirka Somaliland u fadhiyi doona waddanka Kenya kaasi oo ay Somaliland iyo Kenya hore ugu heshiiyeen in ay Kenya Somaliland xafiis ka furato. dhawaan ayuunbay ahayd markii wafdi sare oo wasiir ah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ay magaalada Nairobi iyo xarunta waddanka Kenya booqasho ku tageen, iyagoo u socday arrimo diblomaasiyadeed iyo weliba inay la kulmaan hay'adaha caalamiga ah ee waddankaasi uu fadhigoodu yahay gaar ahaan magaalada Nairobi. heshiiskan Somaliland iyo Kenya dhex maray ee isku soo dhawaanta iyo diblomaasiyad isdhaafsiga ah ayaa in muddo soo socday, waxaana uu ka bilaabmay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo waddankaasi booqasho ku tagay si heer sare loogu soo dhaweeyay. wixii waqtigaasi ka dambeeyay Somaliland iyo Kenya ayaa waxa u socday cilaaqaad rasmi ah oo ay isweydaarsanayaan qodobadii lagu heshiiyay inkastoo aan isla waqtigii lagu heshiiyay fulin, haddana iyagoo jawi hoose ku socda ayay qabanqaabadoodu socotay. waxaana qodobadaasi ku jiray tan maanta dhacday ah inay Kenya Hargeysa ka furato safaarad iyo xafiis arrimaheeda u qaabilsan. qodobadii lagu heshiiyay xilligaasi ayaa waxa kale oo kamid ahaa in diyaaradda Kenya Airways ay magaalada Hargeysa si toos ah uga degto oo ay uga soo rakaabsato sida caadiga ah ee ay dalalka kaleba ugu kala gooshto. qodobadii lagu heshiiyay oo si degdeg ah u fuli waayay ayaa xildheerayaasha siyaasadda Somaliland iyo dhulka Soomaalida waxa ay ku macneynayeen Kenya oo xilligaas ilaa iyo hadeer ay xurguf siyaasadeed ka dhaxayso waddanka Soomaaliya inay Somaliland uga dhigayso karbaash oo weli ay Soomaaliya aaminsan tahay inay ka mid tahay. hase ahaatee iminka waxa muuqata in heshiiskii Somaliland iyo Kenya dhex maray ay wax ka fulayaan maadaama ay Kenya soo magacowday wakiil Somaliland u gaar ah oo fadhiyi doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland.